waxay ahayd farxadooda iyo maalintooda qaaska ah, waxaana agtooda taalay lacag $10,000 ah oo hadiyad ahaan loogu keenay lamaanahan iyo hadiyado kale, laakiin lacagtan iyo hadiyadahanba ma waari doonaan. ninkan dharka cad wata hortaadana ka muuqda waa qof labisan martina ah, laguna soo casuumay xaflad aroos oo halkan ka dhacaysa, laakiin libiskiisa iyo waxa uu damacsan yahay iyo muuqaalkiisaba iskuma dhaba, wuxuuna sameynayaa wax aanan laga filanayn. waa tuug la keensaday laguna qaldoomay, noqoso waayay sidii laga filayay marti ahaan, laakiin isbedelay. sida kuu muuqata wuxuu qaadanayaa waxa ku jira halkan oo ah $10,000 iyo hadiyado kale, intii lagu mashquulsanaa arooska lamaanahan oo ka dhacayay meel aanan sidaas kaga fogeyn meesha uu ka qaatay lacagtan tirada badan iyo hadiyadahan kala duwan oo loo keenay lamaanahan. wuxuuna qaatay dhammaan hadiyado kala duwan iyo lacago $10,000 ah oo kaash ahaan ugu jirtay boorsadan. lamaanahan oo ku nool dalka Talyaaniga ayaa sheegay in qofka xaday uu ahaa qof iyaga ay casuumteen, marti ayuu u ahaa, laakiin ma uusan noqon sida ay filanayeen. aad bayna kaga shanlaanayaan ilaa iyo hadda, waxayna fariin u direen lamaanaha cusub ee isguursan doona oo ku nool daafaha dunidan aan ku nool nahay in ay iska hubiyaan qofka ay ku soo casuumayaan xafladooda aroos. fariin ayayna u direen lamaanaha cusub ee guurkooda qorsheenaya hadda, lagana yaabo inaad adiga ka mid tahay hadda daawanaya muuqaalkan. lamaanahan intii xafladda ay socotay lana qaatay lacagtooda, looma sheegin in lacagtii iyo hadiyaddii loo keenay balla qaatay, maadaama ay ku jireen maalin farxadeed iyo maalin aad u wanaagsan. waxaana loo sheegay maalintii labaad, aad bayna u naxeen kadib markii loo sheegay in qofkii martida ahaa lacagtaas uu qaatay. ku darso lacagta tirada badan iyo hadiyadaha tuugga uu qaatay waxaa keenay waalidka lamaanahan, gaar ahaan wiilka hooyadiis oo geeriyootay, si ay kaga farxiso wiilkeeda iyadoonan joogin. maadaama ninka wax haday la yaqaanay, waxaa farxad weyn lamaanahan u noqotay in ninkii la xiro, waxaana la yidhaahdaa London Lancrin, waana kan hadda aad aragtid wejigiisa. xabsi ayuuna ku jiraa, mana filayo in mar dambe dib loogu casuumi doono xaflad aroos. daawade, maxaad samayn lahayd haddii qof aad ku casuumtay xafladda arooskaaga uu xado qaatana wax kasta oo adiga lagu keeno, lacag iyo hadiyadba? maxaadse ku samayn lahayd qofkaas markii aad ogaatid kadib? aragtidaada waa muhiim, kuna reeb qaybta hoose ee commentiga gabar iyo wiil midka aad tahay. laagna saar muuqaalka si aan u ogaado bilow iyo ilaa dhammaad inaan nala joogtay, siina shargaray.